كتابة كرم ملها وسهل الشيء كتابة كرم أيسن كتابة كرم على هوية المها سو هذيك مدل مثلا ناك كبر كادش horta abtiyo xoogaana si kulul waa ila hadloosaa runtiina qof dhibana ahay sheekada kow ma kaaga soo bilaabaa iga soo bilaabko waxaan kugu xanaaqay koobaad marka hore meel xun iga hadlaysa sheekada qabiil malihi iyo magacayga axlaamna soo kooban jeclahay iyo wax sax bilow aan ma jecli ana waxaan jeclahay haddaan kiis qaadayo inaan si turu ah oo dhab u qaado runta ku sheegada gal hadda gudaha gal sheekada ku dhigaysan 2015 waxaa isguursanay nin abgaala isguursanay sawirkiisa caawo ninka abgaal abtiyo telefoonka ma qabanaysid markii lagu soo waco telefoonadaada garanaynin ma qabatid maahano marka ma kuu soo diri karin daardiina aan kuusoo dhex maray runtii qosol uma imaanin sheekada waxaa ninaa isguursanay 2015 anaa isguursanay waxaa u dhalay 3 ilmood 2 gabdhood iyo wiil aan u dhalay 15 ilaa iyo 20 ay sheekada ahayd dhalitaanka 20 markii la gaaray qorsho waxaa la keenay ilmaha in laigala wareego waa imaqashilmaha ilmaha waxyaabo badan oo yani maaragtay safety-gayga isku dhex qasan haddii waxyaabaha qaar oo adigana ilaahay dartiis abtiyo markaa ku dhaho maka boodi karaa haygu adkeenin waxyaabo safety-ga dibna waa ku ogaanaya haddii waa iga codsi waaye ma fahamtay oo xuma aha marka saasaan aan codsi ku weydiisanaya 2020 waxaa dhacday ilmaha in ayadood oo aabahood dhashay awoogood oo dhintay iyo aabahood inay go-aan ku gaaraan ilmaha in laiga wareejiyo qaab caqliyeysan oo farsamaysan haddaa u baahan tahayna waan kuu sheegi karaa sababaha laakiin ma u malaynaya inay muhiimsaa usii tahay ilmihii waa laiga wareejiyey ayadooda la wareegtay iyo awoogood waan iska soo tegay ilmihii markii gacanta laygaga dhigay waxaa laygu dhahay inta mataqaana isheegay si hoose layla hadla waxaa laygu dhahay familkan kama tirsanid maanta wixii ka dambeeyo marka waxaan jeclaan lahayn in aan farax naga qaado oo saas aan hooga dhex baxdo si qaab oo xoogeysan ayaa saas la iigu dhahay adiga waa iska tegay dadkan tahriiba ahaa maraykan tahriibku galay anigoo ka calool xun ilmahayga aan ka tegayay iyo qaabka farsamaysan oo caqliyeysan oo la igala wareegay baa waxaan dhahay hooyo adaan kugu ogahaan ku war ilmahayga maadaama ay iga qaadateen waxaan rajeynaya inaa ilaahay uga baqin waxaa dhacday marka abti sidii aan maraykan ku galay sharci la-aan ahaa wixii aan ka marayba 2023 abruufka helay waxaan isku dayay ilmaha inaan dacwo u xareeyo dacwadii wixii markaan u bilaabay waan u sheegay kama qarnin maamada waxaan ku dhahay ilmahayga dacwo u bilaabayaa waxaan rajeynaa inaa ii ogolaatid hooyo oo ilmahayga ay siisid aan ku dhahay marka waxay tiri taas riyo waaye geeriyaa ka dhowey dhahday bas waayahaan ku iri ani waa u jeeda inay serious ahayd oo sheekada qaabka ay ka iigu sheegayeen inay runka ahayd inaysan ilmo isiinaynin laakiin anigana dhinaca wanaagan ka fiirinayay mar walba waxaas dhahay markaa soo diyaargarowdada waxa basuuka hagaagaan ayaa ilmahaaga lagu siinayaa marka waxaa dhacday 2023 bishii 8 baa waxaa dhintay awoowihii maamada isqabeen oo ilmaha awoogood ahaa awoow markuu gurigu joogay wuxuu ahaa alla yarxam araaximiin dadka aan saas banaanka ugu bixbixin sababtuusa banaanka ugu bixbixinina waxay ahayd maadaama uu indhaha uu wax ka qabay
يعني waxaan rabaa inaan ku sheeg sababta guriga u joogay guriga marka waxa joogtay ayeeyo iyo awoowe iyo ilmo kale oo wiilka dhalay oo hore u dhalo waaweyn iyo kuwaygan yaryarka ahaa joogtay oo dhibaatada hadda kaaga sheekeynayo qolkaaga caawi keentay yani awoowe markuu joogay gabadha oo ilmahayga dilayso waa ku soo wadaaye oo eedada ah ninka ay kala tageen guriga wax awooda kumay lahayn markii la furay oo ay ninka kala tageen kadib booqasho way u imaan jirtay iyo habeen dhax laakiin wax saa u tiro badan waqti ah maysan u joogi jirin marka waxa dhacday awoowaha wuxuu dhintay bishii 8/23keedii 2023 uu dhintay sheekada wax badan aan ka soo mooday oo aan dib kaaga sheegi doonaa marka awoowaha waqtigaas uu dhintay gabadha oo ciidada aabaha ay kala tageen oo ilmaheedana ay meesha joogaan ayaa gurigi u soo guurtay si ilmaheeda iyo kuwan oo aniga dhalaybo ay masuul uga noqoto okay ayeeyo markii hore guriga way joogi jirtay laakiin saas ma u joogin markuu awoo dhintay yani qof waxay noqotay 7 maalinba guriga ka baxay noqotay oo aan joogin saacadaha ay joogtana saacado yar yar oo kooban ay ahaato sida duhurkii oo 2 saacadood ah subaxdiisa uga baxdo duhurkii oo 2 saacadood ilaa 1 saacadood ah iyo habeenkii oo soo noqoto 3 saaco habeenimo inta ka dhaxaysa marka abti ilmahayga waxay ku jiraan qofka janalkayga dib u raacana wuu awoodaa inuu soo arko adna waa kuu soo diri doonaa kuwa xunxunna validation la igu qabtay oo TikTok-ga diiday saas daraadeed ayaan ugaga saaray waxaa dhacday marka abtiyo ayadoo xaaladii ay sidaas tahay baa ilmahayga markay gabadhan usoo wareegtay waxay bilaabeen ilmahayga in xoog loo dilo in la rafaadiyo in cuntadii lagu dhibo in garaac iyo dhaawacyo jirkoodii loo geysto in la qanqaniino in yani dhaawac weyn oo qof walba oo bini aadana uu arko uu ka naxo loo geysto waxa u geysanayana ay tahay eedada aabaha ay kala tageen haddana ay qorsheynayaan inay isku soo noqdaan ayadoo u marayso qaab ah inay ilmaha rabto inay u asxaan samayso tarbiyayso ahaan ilmaha markaan la hadlaayo waa la iga ilaalin jiray hadalkooda ma la ii ogolayn yani ogolaansho oo diidma qayaxana ma ahayn laakiin afkooda waxa ka soo baxayo aad loo kontrooli jiray marka maalmaha kamid ah cunugteyda waxay u dhahday hooyo gudaha ayaa la iga qanjaruuftay u dhahday marka waxaan dhahay gudaha laga qanjaruufanayo hooyo maxaa ka wadaa ma ku fahminaan dhahay gudaha laga qanjaruufanayo waa 9 jir waaye cunugteyda waxna gudaha maxaa ka wadaa surwaalka iska bixisay waxay i tustay labadeeda cajar dhexdooda yani meel ka maqan camal ahaan ay cunugtii tustay waxaan dhahay hooyo waxaan qanjaruufo ma ahana qanjaruufo way ka wintee maxaa lagu sameeyaan dhahay run ii sheeg waxay tiri firgeeta inta la qaaday aasas la iigu maroojiyay qanjaruufo marka anigu isku naxay maalintaas ilaahay baa run jecel waxaan dhahay ma firgeeta inta sas lagu geliya lagu maroojiyay ha dhaawac inta la ka soo gaaray ha okay aan dhahay bini aadana ahay waa xanaaqay marka oo cunugteyda maamadii inta la hadla waxa ku yiri maama ilmahayga in saas la yeelo adigoo ka maqan guriga maxay ka dhigan tahay baa ku yiri maamadu waxay u tiri cuqdad baa qabtaa ilmaha waa la tarbiyeenooyaa idaba loo yeelooyaa ma ku fahmin bay dhahday waxyaabaha adiga ka hadloosid hadii dacwo iyo oo dood qabtid bay u dhahday xamar imow okay maama saas miyahan dhahay ha waayaha ku waa mahadsan tahay shibaan saga dhahay wiiga ka soo wareegay maalina ku soo hadal qaaday waxaan dhahay maama waxaan rabaa inay ilmahayga ka haysto maamadii codka ku soo diri doonaa afdaahir cali sow waxaan wada hadlaynay muddo 30 daqiiqo ah ku dhawaadan wada hadlaynay oo aan ka wada hadlaynay ilmaha iyo dhibaatada loo geystay dhaawaca iyo qofkan guriga joogto waqtiga awoowo dhintay ilaa iyo hadda inay sanad iyo xoogaa ka soo wareegtay sanadkaas iyo xoogaagaasna inay ilmahayga ay dhiban yihiin okay maamadu waxay sheekadii ugu soo gabagabaysay hadda awood leedahay bay igu tiri xamar imow kaale ilmaha iga qaad waayahan dhahay jaanisaan raadiyey aan kula heshiiyo gabadha guriga ka shaqeynayso shaqaalaha ah gabadhii aan la hadlay waxaan ku yiri abaayo arrimaha ilmihii ku dhacayo maxaa ka ogtahay yani waxaan rabaa si run oo cadaalad ah inaan maxkamadda uga hadlaa rabaa dadkii fiidiyoyaashaas xal la wareejinayay oo 3 cunug la xadayna si fiican way u dhageysteen dhibaatada oo ilmaha laga sheegayo
marka waxaa dhacday inaa gabadhii shaqaalaha la heshiyo ku dhaho abaayo maxaa arrintaas aad ku ogtahay iyo sidii ay wax u jiraan. waxay ugu tiri ilmaha waxay kuu sheegeen waxaa ka daran waxyaabaha kale oo dhaawacyada ah oo daily basiska ah oo ilmaha loo geysto. okay waayaha ku yiri abaayo runbaa fiican inaa inta ka cadeeyaa rabaa haddaa ku qaldanahan Soomaaliya maxamed waa qaldan tahay way ugu dhihi karaan. waxaa ku yiri abaayo hadday saas tahay guriga kaamirada ku xiraa aan dhah adigana wix allaali iyo waxa awoodid ii soo duubaa ku yiri. guriga marka waxaa sameeyay inaa hal kaamirad aan ku xiray meesha daashka ah oo public ah oo cuntada lagu cuno oo dadka dhan ay wada joogaan ayadana wax allaali wixii awoodo ay kaamirada iga soo diri jirtay. okay waxaa dhacday maalintay ugu yar tahay 3 ilaa 4 fiidiyoo ii soo dhici jiray oo ilmahayga oo la silcinaya qofka channelkayga hadda hoos u raacana wuu fiirsan karaa laakiin mostly validation ay ugu noqdeen oo waxa TikTok soo gelin kara ma ugu noqon ilmihiyo si live loo garaacayo oo TikTok ii diiday inaan meesha soo geliyo laakiin sida hore kuugu sheegaba WhatsApp ko kuugu soo diraya. marka arkay ilmahayga situationkay ku jiraan muddo 3 bilood ah baa si joogto ah waxaa la iigu soo dirayay everyday 2 ilaa 3 fiidiyoo ilmahaygoo la ceejinayo ilmahaygoo la dilayo ayakoo suul la dhacayo tusbax 500 ayakoo la dhacayo ayakoo la dhibaateynayo ayakoo yacni ma aragtay ma sharixi karo dhibkii dhaawac ilmaha soo gaaray. okay markaan cadeymankii aruuriyay codadkii aruuriyay wax walbo waxaan u sameeyay email aan u sameeyay emailkaan ku guray emailka markaan ku guray ayaa maamadii ku noqday waxaan ku yiri maamo ilaahay baan kugu dhaariyay intaasoo dhibaataa ilmahayga haysatee waan ku baryaa adigana qof guriga jooga ma tihide 2 arrin ii samee. 2 arrin oo ii sameynaysid inaa ilmahayga gabadha shaqaalaha ah oo guriga joogto ay iigu wareejisid oo ayada ay mas'uul ka noqoto oo gabadhan meesha joogto oo ilmahayga dilayso oo ilmahayga ee dadood inay meesha ka baxdo ama inaa ilmahayga siisid. waxay ugu tiri 2 arrinba kuma suurtagelayso xumaanta adiga ay raadinaysid iyo cuqdada adiga kugu jirto gabadhan kuma jirto ilmahan way tarbiyeysaa. okay tan kale oo shaqaalaha ah ay sheegaysidna guriga ilmaha way la joogtaa. okay waayaha ku iriye dhaawac ay dhibaatada ilmahayga loo geysanayo ayakaa ii sheegay maxaan ku xalin karnaa. waxay ugu tiri wax aan ku xalin karna ma jire ilmaha naariyaysa ku geynin. okay waayaha ku irisaas miyaha go'aankaaga ugu dambeeyay muxuu yahaan dhahay. marka go'aankayga ugu dambeeyay waxaa waaye ugu tiri wax ani ilmo ah oo aan ku haayo ma jirto. ilma waxaan haystaaba igu tiri shahwada wiilkayga ayaan haystaaba igu dhahday laakiinse wax ilmo ah oo adiga ku magacaaban tahay oo aan haayo ma lahan bay bisinka hayli waayahaan dhahay waa sida ereyga u tiri waana soo saari doontaa Abdi Daahir Calisow. okay waayahan markaa ku iri maamadii aabihii aan la hadlay aabihiya waxaan ku iri sahal siicoo soo dhawow walaal aniga shalay ilmahayga adaa iga qaaday qaab qiyaano ay ku jirto oo 3diina aan kusoo wada tashateen aan ilmahayga la iga qaaday maantana ilmahayga waa la iga siicinoyaa aniga ninka i qabaa ku iri maanta xaasa ahay ninba i qabo ninka aniga i qabaa ku iri haddii ilmahaaga ayakoo ila joogaan uu saas samayn lahaa oo habeen iyo maalin uu madaxa ka garaaci lahaa see dareemi lahayd baan dhahay. wuxuu yiri gabadha anaa u amray ilmaha inay dishana anaa u amray wayna tarbiyeynaysaa ninka ka hadloosanna waxba ma iga gelin aniga ilmahayga anaa dhalay ilma biishid waxna iigulama tartid anigaana ka mas'uul ah go'aankoodana anaa iskale. okay waayahaan dhahay hadda iyo dan waxaan ku heshiinaynaa baa ku iri ilmahaygiina ani igu wareejisid wax biil ahna aana ku weydiinin waxaana kaa codsanayaa baan ku iri si naxariis leh inaa ilmahayga ii siisid. wuxuu igu yiri wax ilmo ah oo aan ku haayo ma jirto. sheekada weliba saa afka ka dhahayo way ka xanuun badan tahay Abdi Daahirow aada la isku soo jijiiday laakiin maadaama oo aan rabin inaan waqti badan ka qaato waan soo koobayaa oo meelaha qodobada ayaan taabanayaa laakiin haddii la dhaho si fiican detail ha loo galo yacni aad u dheeraanaysaa. okay waxaa dhacday abti aniga go'aankaygu waa u adkeysan waayay ilmahaygu saas loo galay iyo familkan say ila dhaqmayaan sheekadii gabar sacad ah oo ilmo habreed nahay ayaan soo dhexgeliyay. maamadii la hadashay waxay ku tiri maamoy gabadhan way silacsan tahay ilaahayna uga baqdid baana fiican ilmaha sida loo galayana si fiican maahane ha lagu wareejiyo. maamadii waxay iska soo jartay yacni naagtan Soomaali ma ahan sidii ereyga u tiri waay laakiin waxaa dhalay
sacad baa dhalay oo u reer abti ah marka waxay tiri ma sacad ahaan baa rabtaa inaa iila doodid oo yacni aad tiraahdid gabadhan maadaama ay sacad dhaleen annakoo abgaala inaa isla kaayso barbardhigtid yacni sheekada maamadu waxay u bedeshay si qabiil ah ay u bedeshay waa sida iyada hadalka ay u dhigtay oo ilaahay la ogyahay ani marka waxaan sameeyay markaan arkay heerkaas inuu sheekada marayso maamadiina aan u jeeday inay ka naasacadahay inay ilmaha isiiso ayada iyo wiilkeedana inay heshiis ku yihiin arrinkan ilmahayga dhaawac ay dhibaatada loo geysanayeen aan u adkeysan karin waan soo baxay Mareykan aan kasoo duulay Soomaaliya imaaday abtiyo to be honest waa laga yaabaa inaan ku qaldanahay ilmahayga saan u badbaadiyo waa soo xaday runa fiican marka waxaa dhacday ilmahayga markaa soo xaday 18 bisha oo hadda bishan ay ku jirno soo xaday 18 markaa soo xaday waayo waxaa ogaa maamadaasna ay ugu tiri in ballan qaadeen reerkaas hadaa hor istaago inay dilayaan sida ayaga oo qorshahooda ahaa oo ay tiri hadaa awood leedahay waa inaa xamar iigu imaadid bay dhahday ani ma garanayo tiri dadka ku reebtiga wax iga qaadi karaan laakiin adiga ahaan qof kula socdo maadaama uusan jirin iyo cid meeshan ku leedahay waxaan ka ballan qaadaa bay tiri wiji hadaan isku soo hor istaagno awood allaali awoodid isticmaal anigan anaa xamarkaaga awood badan ay ugu dhahay okay saas miyaa baa ku yiri ilaahay baa tala saartay waa soo baxay xamara imaaday intii qof oo la heshiin kara la heshiiyay dad oo saraakiil wiilal oo isnaqaano oo saraakiil saasna dad badan ma aqaanin laakiin dadkii saraakiisha wiilasha tigidhada ii jarayeen asxaab kale to kuwa ay laboorka joogo kuwiyaan waxaan tusay abtiyo ilmahayga dhaawac dhibaatooyin fiidiyoosha adiga kula wadaagi doono ayaan tusay waxaan ku yiri walaalayaal caawinaada u baahanahay hooyaan ahay dhibaatadan aan haysato waxaan idinkaga baahanahay ilaahay dirtii inaa ii caawisaan oo ay igu naxariisataan wiilashii markay arkeen wallahi waxay igu dhaheen abti daahiro ilaahay been ay oo ilaa hadda qaarkood loo haystaa oo ilaa hadda qaarkoodna xabsiga loo geeyay waxay dhaheen hadiiba sheekada ay sidaan hadda ana tusaysid ay tahay waa ku caawinayna waayaha ku reer maxaa xal okay xaafadda nagey igu dhaheen xaafadii soo arkay aniga marka hadal marribi hadhow inuu igu soo noqdo abti kiiskan waa ogahay inuu dheeraan doono gabadha shaqaalaha ana la heshiiyay haddaan ku qaldanahay iyo haddaan ku saxanahayba gabadha shaqaalaha ayadana waxay u adkeysan weyday dhibka iyo dhaawaca iyo dhibaatada meesha ka jirta u adkeysan weyday gabadha shaqaalahana waxaan ula heshiiyey waxay ahayd maadaama reerkaas ay rabaan inay dilaan inaa ilmahayga nafsadoodana badbaadiyo anigana badbaadiyo qorshe waxaa sameeyey marka aan ku samaynayo oon dhahayo abaayo adii ilmaha bajaaj soo raaca ay laboorka iigu imaada wuuna ii hirgalay ilaahay baa runta jecel oo marrab aniga inaan ka been sheego waxaan sameeyay hadalkaas inuu hadhow igu soo noqdo Soomaali weyn ee qalad ii fahmaan marrabi ilmihii alboorka la iigu keenay wiilashii saraakiisha ay caawiyeen wiilashii saraakiisha markay caawiyeen ilmihii alboorka the last minute-kii 3 saacadood ku jirnay last minute-kii ayaa waxaa la soo diray 5 saac iyo bar ahayd diyaaraddeena kiciisay 5 saac iyo barkii oo 3 daqiiqo ay ka dhiman tahay waxaa la soo diray ilmaha sawiradoodii iyo ayakoo la dhahay naag shaqaale baa ilmaha xaday markaas waxaa ila socday gabadha shaqaalaha iyo ilmaha inteenaba u asraacnay okay body baska markaan qaadanaynay baa ninka oo body baska naga jiraayay oo albaabka taagnaa wuxuu dhahay ilmaha magacyadooda ku dhawaaqay markaas waxaa ku iri ilmaha magacyadana sheegaysid ma la dhaho okay saas miyaa uu dhahay waayahay diyaaradda markii albaabka saa u xirantaa waxaa la dhahay markii kaamirada oo alboorka la fiiriyay waxaa la dhahay ilmaha oo la bixiyay ilmahani ahaayeen waxaan u baahanahay in oo ilmaha dib loo soo celiyo way dhici weyday marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin in ana kadibna loo soo celiyo waa lagu guuleysan waay anyway ilmihii waa la soo baxay sidii abtiyo uu la soo baxsaday meel walbo aan soo maraba ilmihii waxaan la soo galay Kenya waxaa dhacday aabihii inuu nala hadlay oo familkeeda soo waceen ayagoo noo hanjabaayay oo dhahayaan ilmahan maanta isla habeenkiina soo waceen isla habeenkii markana soo waceen gabadha shaqaalaha telefoonkeeda anaa ka qabtay marka aniga ka qabtay waxay ugu tiri su'aalaha ma aha soo ilmahaaga ma haysatid ilaahay waxaan kaaga baryay bay tiri cimrigaaga intaad nooshahay inaad waxba ku faa'iidin adduuniya aakhiraba waxaan ku yiri hooyo ay habaartid waa haday ka ogolaato meesha in la soo saaro hooyo ay habaartid baa ku yiri laakiinse wax xaq igu habaar baan dhahay ilmahayga sidaan arkay loo galaayo inaan maanta badbaadiyo ma ku qaldanahay mise waa ku saxanahay baa ku yiri
تليفونكي قب يقصيسي دادا اللي يقصو كعيه أبتيو دولد سومالي ودانا اللي يقصو كعيه قبيلكي أبقال أو دن باي عيرسنويو المهي بنانك ولا ما بحي كرو sheekada marka si oo duduub intaan isugu darin ilmihii marka la soo baxsaday gabadha shaqaalahana in soo raacday waxa ku iri abaayo systemkana jiree maxaa la sameynaa cunugtii marka reerkeedii iyo familkii la weeraray cunugtii familkeedii reerkeed markii la weeraray aabaheeda la xiray walaalaheeda la xiray sheekada way dheeraatay cunugta oo ilmaha isoo xadeysan cunugta abgaale ahayd waxaa dhacday marka abti shakada waxay kusoo gabagabowday wili safarkii anakoo laakiin alxamdulillahi rabbil caalamiin Kenya soo galnay buu wuxuu la hadlay nin ay ilmo adeer yihiin oo Kobac TV ay ugu qoran tahay I don't know magaciisa Cabdifataax miyaa garanaayo Kobac TV Kobac TV abti hadda waa fiirin kartaa inta mood gashid xataa Kobac TV-ga saddexda caruurta oo la xaday oo Yurub laga soo celiyay waa saddexdaas waay saddexda ilmood la ciirsanayo waan ilmahayga waa kiiska hadda caaw ka hadlooyo waay Kobac TV-ga wuxuu dhahay si walba ha loo sheer gareeyo ilmahan kiisas badana ku lug ayaa ku lug leh Jarmalka ilaa Soomaaliya ay sheekadan isku xiran tahay waxa dhacday marka abti in la khalkhal geliyo in dawladda Soomaaliya dadka ugu sareeyay ay soo wacaan xildhibaano oo abgaal inay soo wacaan inay hanjabaan in la igu dhaho meelna kama baxsan doontid Soomaaliya wax awood ku malihid kaliya baa tahay garab ma haysatid ilmahan ilaa meesha inay ku soo celisid waaye qaab waxa la dhisay oo la dhahayo ilmahan hooyadood way dhimatay marka waxa ku dacaynay ma Cabdi Cabdi Riyalka iyo abgaal oo dhan inta sheekada ogyahay una baahan yahay cid walba bal fiiriniyo ninkan Cabdi Riyal ma taqaana shaqajaan noqdo moogta waagi hore wuxuu ahaa Cabdi Riyal nin dadka masaakiinta u gargaara oo wuxuu ahaa dadka waxay ninka xogaa lacag buu helay dhaqaalo sameeyay barnaamijyadii waxba ka soo galay hadda bal wuxuu ku hadlaa ninka dhageysta fiiri ilmahaas wuxuu leeyahay ilmihii baa shan la yeelay af qabiil ku hadlaya ninkii maxay qabiila ninka galay waxaan rabaa degdeg khatar badan una baahan yahay cid walba oo Soomaaliya gaar ahaan dadka qurba joogta ee caruurtooda Kenya dalka Soomaaliya inay ka taxadiraan maqal saddexdan caruur ay u jeedaan waa walaalo Jarmalka ayaa laga keenay laakiin gabadhii jaariyada ahayd ee guriga joogtay ayaa la dhuumatay oo la baxsatay dibna loo arkin caruurtan saddexda oo magacyadooda la kala yiraahdo Ashar Siicow oo 10 sano jir Khalid Siicow oo 9 sano jir iyo Azim Siicow oo 7 sano jir dhammaantoodba Jarmalka ayaa laga keenay waxaana gabar guriga joogtay oo ka shaqeynaysay oo magaceeda noogula sheegay in la yiraahdo Mumtaaz laakiin magaca sax uusan ahayn oo ayada baxsatay laakiin magaceeda dhabta uu yahay Xaawo Cabdullaahi Maxamed Maxamuud ayaa caruurtan la baxsatay arintan qaybta koobaad waxaan idin wadaagi doonaa xogtaas khatarta badan bal fiiri ninkan inay ilmaha la baxsad maxkamad ma soo xukuntay ilmo iyo hooyadu watay yaa waxa la leeyahay qatar ba adduunku soo siyaaday fiiri qabiilku heerka Soomaali maanta ka maraya fiiri hooyo ilmaha ay dhashay qof fiican ma jirto ilmo hooyadu laga heestay oo lagu dhibaateeyay waxa lagu leeyahay fiiri ninkan in weyn waay waxaas qabiil buu u sameeyay fiiri Cabdi Riyal ilaahay baa idinku dhaariyay suu Cabdi Riyal halka ku dambeeyay fiiri qabiil buu u munaafiqnimada ku leeyahay atar weyn baa soo siyaaday gabadha wixii barbagaada ka dhigaya waxa iyo sheekada socod ana Cabdi Riyal laakiin mis information ama la siiyo qaldan leeyri gabadha dadka cudurka ku dhac fiiri waxa la rabaa anay qabiiliste kasto ahay gabar ooyeysi ilmaheed ma dhex geli karday wax kasto qabiiliste aan ku si kasto arma leeyri hooyadood ma qaadano shaqaala qaadatay ayada noo sheegi doonto abtiyo ma ku socdaa marka abtiyo waxaa dhacday markii sheekada halkaas ay mareysay in oo alxamdulillahi rabbil caalamiin Kenya soo galnay Kenya markaa soo galnay abtiyo telefoonkeyga waxaa lay soo wacaa maalintii more than 1,000 number oo kala duwan ayaa soo galo waa lay tracking gareeyaa oo meelaha joogo inkastoo ay taas u suurtagelin oo number Mareykan haysto
nambarka whatsappka igu samaysan nambarkayga caadiga oo maraykan uu yahay meel kastoo layga soo geli karaa abti laysku dayay in layga soo galo hanjabaado fara badana la iisoo diraa cunugtii i caawisay oo gabadhii garabkayga soo istaagtay oo ayada laftirkeeda aan Soomaaliya tagi karin markaan isku dayay inaan yacni u sheego oo dhaho abaayo miyaha arrinta tan way ka cuslaan doontaa garab saa'idaana kaaga baahan doonaa ha isku dayin meeshaa joogna iyo waxyaabaha samaynayna inaan u sheegno cunugtii inuu qalqal geliyo oo cunugtii inta lasoo waco la dhaho ما فاهمين داير دينا وحا بو إيسا قرتي ما فاهمين والله داير دينا إيسا ها marka waxaa dhacday cunugtii in oo ayada laftirkeeda qalqal lagu furo oo la dhaho aniga adi ilma igamaada qaadanine waxa ilmaha iga qaatay waa naagta shaqaalaha ayadaana u raadsanaa aniga waxaa isku dayay marka inaan reerka u sheego oo ka dhaadhiciyo oon dhaho aniga ilmahayga qaatay dhaawacii dhibaatada loo geystay darteedaan ilmahayga u qaatay anigaana haysto ilaa hadda way ka qanci la'yihiin abtiyo meel baan la ku wareejinoyaa banaanka uma bixi kari ilmihii waxba uma soo gadi kari guri la igama ijaari karo qof walbo ay arkay sidii wanteedkii oo kaleeto waa naagtii shaqaalaha oo ilmaha xadaa leeyahay madaxayga lacagaa la dul saaray ilmahaygu way oynayaan hooy dhibaatada nagu celinayna leeyihiin wiilkayga yarkaa waa kana hadda intuu jiifaa wallaahi abtiyo maalintii programkaas uu bilowday ilaa iyo hadda wuxuu dhahoyaa abti daahir cali soo nooge asagaan uga dacwoonaynaa he is 6 years old haddii oo qadka ma rabin in dhibaato kaaga imaan tiktoka waa kuugu qaban lahaa wejigiisa waxaygii ma kara ma ani waxaygii ma kara waa kana abti waxaygii ma kara ma ani ana qofaan ka baqay waxaygii ma kara ma leh anuu gabdhaha la jiraa أنا مركز سواء اللي كان حقي لوي تو هاي واحد يقال مال دلي عاي هدي واحد اللي يراهدو هدا إذا كنا قريسين أنا أم أوكي أبتيو إيو لو ده عند بلوضو يركع هاي كان يجوغان كاميرا سيلوجي ديا قاني كاميرا سيلوجي ديا باكوانا وقت سنة أي كانت أنت وردايان قاجو اللي وردايان بنان ومصاري كرو واتنا تيرتي قاجب حكينا إيشك waxa gaajada keenay waxay tahay abti social media na lagu wareejinayaa banaankii wanteedan ka noqonay waxba kama soo gadan karno qof walba oo aan isku dayna inaan wax u dirsanana ilmihii markuu arko asagana dacweynayo oo saliga ugu horeeyna geenayo waxayna aaminsan yihiin inaan ahay gabadhii shaqaalaha ilmaha soo xaday oo ma ka dhaadhicin karo ilmaha hooyadooda aniga ahay ma ka dhaadhicin karo ninkiina markaan si walba uu la hadlay wuxuu sheegayaa abti in oo mataqaana codad badan waan ka duubo waan ku haya ayag iyo familkooda dhan waxay sheegayaan telefoonka hayga soo dhig whatsapp hayga soo dhig abti ma ku shida waa ku shidi karaa telefoonkaana ka haya si loo kala wareejiyo ay ish waa inaan ku shido بروفيشنال في عن 19 ليست والله قبلنا وصجت والله ما شاء الله صجبت نيو انا مركز تو انا قبلها راعسناي قفكي قبيله igu haysto qofkii caayay qofkii amaari doono markasta wayalkii anu ahay ma rabo sida nolosha noocaana ma rabo gabdhuhu ku jiraan saan saayid daahiro cabdicasiis ka shams ma lagu qaaday أنا هل سؤال قبل هذا قبل cabdicasiis afkiri cabdicasiis wuxuu noqday daneeste hay ما دم الله هنا قبل الشقالة هذا هذا أنت كنت مسوي دي gabadha shaqaalaheed aaw marka abtiyo gabadha shaqaalaha waa idinka codsan lahaa inayna saa'id iisii weydiinin laakiin haddii aad ku adkaysataan waa idin sheegaa laakiin waxaan ka wadaa gabadhu meel fiican safe ma joogtaa mise ma joogto safe way joogtaa meel safe way joogtaa dantaana na kala reebtayoo maadaama meel walba laiga baafinooya abti ninkan wuxuu iigu hanjabo ii sheegay inuu eelbooradoo dhan wax iga dhigay midda kale abti oo mid yaraa rabaa inaan kugu daro haddaa ii ogolaatid haye abtiyo ani markii hore qurbaha inkastoo I don't know wallahi inay dib iga imaan doonto inaysan dib iga imaan doonin markii la duubo laakiin aniga dowladnimada idibka imaanayso fiiri يعني waxaa wadamadaas dhaxaa aan ilmaha ka keenay markii hore moogtahay oo aan ku noolaan jiray markii oo ilmaha la iga qaatayna waxa la isku dayay xabsi la igeeyo oo hay'adahan ilmaha la igu diro oo ayaga la ii isticmaalo si aniga la ii fiiri arrimaha qaar social media hadda maanta dowladda Jarmalka waxay la ii sheegay in oo nin leehdo baabajay oo informationka safarkiisa tahriibkiisa ka hadlayay iyo wax kastoo la soo dhaho ka sheego yaa waxa lagu sameeyay basaasnimo ma fiicna gabdhaha dadka Soomaaliyeed inay noqdaan